mid kalena waxa weeye xisbiga wadaniga mucaaradkii wuxuu iclaamiyay mudaharaadku u dhacaya waxaan leeyahay xisbi weynaha wadani meel kasta joogaanba ha diyaar garoobaan mudaharaad salmiya oon hub la sidan oon dhagax la sidan oon taayir la gubahayn oon rasaas la ridahayn waxaa samaynaysaan idinkaa ummadda u sheegi horena waa u laysan imakana laaya annagu hub ma sidano qori ma sidano baastoolad ma sidano waxa la yeelo sidano ma jirto u diyaar garooba hubkii aan nagu rideen iyo raggii xiniyaa ka saarayeen dumarkii ay ragga isku mid ka isku family leynayeen iyo ciidan beeleedka wadateen hay maadaan maantana hubkii hub ka badan oo soo dhiiba waxaan leeyahay maxamed kainow waxa tir ciidan beeleed bas mucaaradku annaga ciidan beeleedna laay ciidan beeleed muusanaabay oo la dawladdeedii baa duminaysaan annaguna laayo shacabka leynay dadka leynayay baastoolada la dhacay ragga macawisa xidhan dhamma dilayay ninka cukusa dilay dhankan gooyay intaas waxaan rag dhalinyaro oo muusanaabay oo la dawladdeedii baa ridaysaan ay ahaayeen raggaasi wax dilaysa ma xidhnayn astaan ma xidhnayn wax lagu garto ma ay xidhnayn inanka barasaab ku xigeen kala qadar baaruud anagu dadka waan isoo aqoon badanay waxaan leeyahay qadar baaruudow anigu adoo yar baan gacanta saa ku hayo gurigeena aan isguur ku kornay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex xisbiga mucaaradka ah ee wadani Muurid Kayse Maxamed oo warfidyaanka kula hadlay xafiiskiisa waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay laamaha ammaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Maroodijeex kuwaasi oo sheegay in aan wax mudaharaad ah oo ka dhacaya magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dalkaba aanay jirin gudoomiyahu waxa uu carabka ku adkeeyay inuu qabsoomayo mudaharaadku ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka isla markaana ka xisbiyahan ay si weyn ugu diyaar garoobeen qabsoomada mudaharaadkaasi xisbiga wadaniga mucaaradkii wuxuu iclaamiyay mudaharaadku u dhacaya xaqna waa noo leenahay horena xaq baan ugu lahayn imakana xaq baan ugu leenahay qodob dastuuriya baan noo ogol waxaan halkan fariin uga dirayaa inanka barasaab ku xigeen kala qadar baaruud anagu dadka waan isoo aqoon badanay waxaan leeyahay qadar baaruudow anigu adoo yar baan gacanta saa ku hayo gurigeena aan isguur ku kornay waxyaalo fara badan oo aanad waayarag u hayn baan waayarag u ahay waxyaalo fara badan oo aanad ogeyn baan kuu sheegaya adeero maanta run ahaantii inankaygii baan kula hadlaya anigoo nasteex baan kula hadlayaa waxa weeye waan kaa aragsanahay wax badan oo aanad ogeyn baan kaa ogahay markaad leedahay kulmiye shalay tasan muu ahaan jirin kulmiye mudaharaadkiisa waa lagu dhiman jiray kaayaga laguma dhimanba kaayaga taayir laguma gubin kaayaga gaari muraayad lama jabin haddii indhala'aan dee lagu hadlayana qofba wuxuu doono iskaga hadlay haddii sharciyan iyo maamul ahaan iyo mas-uuliyad ahaan lagu hadlayana oo dadku xaq buu u leeyahay inuu mudaharaad salmiya dhigo abid muu soo marin mudaharaadkaanu dhigin mudaharaad lamid muu soo marin dalkeenna mudaharaad aan taayir la gubin mudaharaad aan gaari muraayad laga jabin mudaharaad aan cidi ku dhiman mudaharaad aan dhagax la tuurin kaayaga aanu samayn maalinta dhaweyd baa kow ka ah kulmiyaha sheegaysa samayn jiray waa dadkayba daawaha saari jiray ku dhiman jiray musabbixiyana kaay waa ku dhiman jiray dadka lagu leen jiray koodii mana ka joogsan jirin annagu ummadayadaan u tudhaynaa iyo dadkayaga mudaharaadkiina wuu qabsoomayaa kii maalintii hore dhacay ku ka ballaaran baa dhacaya 6 gobol ee dalka ee Soomaaliland buu ka dhacayaa waana wax loo diyaar gareysan yahay aan uguna tala galay inuu dhaco nin hor joogsan karaana ma jiro nin kale soo baxa nin waqaana ninka media kale hadduu yahay xabad hala dhaco maanta adduunyadu waa taariikh way qorantay Soomaaliland waa beelaysiimi amarka aad bixisay hadduu jananka yahay iyo hadduu madaxweyne yahay cidii ka dhimatay isagu ma daba gali doontaa beelaynuna nin walba gurigiisa gali doontaa godobtu ayay gali doontaa waxaan leeyahay xisbi weynaha wadani axsaabta mucaaradka ah u cidiyo wadani meel kasta joogaanba ha diyaar garoobaan mudaharaad salmiya oon hub la sidan oon dhagax la sidan oon taayir la gubahayn oon rasaas la ridahayn sidii keenii horeba ahaa u soo diyaar garooba waxaanu dawladana leenahay
haddii aad garan weydaan inay dadkiina harara ka socotaan oo ku ilaalisaan waxa ay xaq u leeyihiin idinkaa waxay dhacayay sheegi doona markaa waxaa samaynaysaan idinkaa ummadda u sheegi horena waa u layseen imakana laaya annagu hub ma sidano qori ma sidano baastoolad ma sidano waxa la yeelo sidano ma jirto u diyaar garooba hubkii aan nagu rideen iyo raggii xiniyaa ka saaraysay in dumarkii ay ragga isku midka isku family leynayeen iyo ciidan beeleedka wadateen hay yimaadaan maantana hubkii hub ka badan oo soo dhiiba ina kahayn waxaan leeyahay maxamed kaaynow waxaad tiri ciidan beeleed bas isbas mucaaradku annaga ciidan beeleedna laay ciidan beeleed muusanaabayo le dowladdeedii baa duminaysaan oo diinta iyo nabiga caayo baastoolada u soo dhiibteen oo ciidan beeleed annaguna laayo shacabka leynay oo dumarka leynay oo ragga howlwadanada xisbiga u leynay kuwii haddana keen maanta ayaan leeyahay gudoomiye waxa sheegtay markii mudaharaadkii hore aad sameyseen ciidan beeleed wax idin geystay idin laayay tanaguna waxaan ka warqabnay ciidankii booliska ciidankii qaranka ay goobta joogeen aduu maxaad ku cadaynaysaa ciidanka beeleedkan hadlada ciidan beeleed wax noo geystay waxaan ku cadaynayaa haddii aanad hore u ogeyn waxaad geli doontaa rikoodhadii la hayay dadkii dadka leynayay baastoolada la dhacayay ragga macawisaha xidhana dhamma dilayay ninka cukusa dilay dhinacayo dhankan gooyey intaasiba waxaan rag dhallinyaraa oo muusanaabay oo le dowladdeydii baa ridaysaan ayay ahaayeen raggaasi wax dilaysa may xidhnayn astaan may xidhnayn wax lagu garto ma ay xidhnayn khadar laangara iyo inankiisa axmed dacwo iyo inankiisa muuse biixi iyo inankiisa intaasaa intaas markay ku disho ay ku garaacdo ayaa muuse biixi inankiisuna kusoo kormeerayay weli kama dhicin waddankan aynu joogno ilaa siyaad barre markuu joogay kama dhicin inan iyo aabihii oo dan wada dilaya ama inan iyo aabihii qof rayada ku tumanaya weli lama arag axmed dacwo waa taliya saldhigga inankiisuna waa madaxa baadhista khadar laangara ku imanayay iyo inankiisa ku garaacayay haybe marka ku garaacaan waxay ku keeneen axmed dacwo iyo inankiisa isu baadhayaala waa rag wada ilmaadeen oo family ah intaasi markuu gaadho gudaha saldhigga waa lagu gelinaya waxaa lagugu gelinayay inuu adeer rumo u yahay ninka la yidhaahdo axmed dacwo oo ku silsiladaynaya ku daldalaya intaasi markii ku gaadhana muuse biixi inankiisa kusoo kormeeraya dalka weligeedii aleed kama dhicin siyaad barre intiisii ka dhicin shacbiga reer somalilandna meel kastoo joogaan maanta gudayo dibad bay ugu soo joodaan indhahoodii dhagahooda bay u furayeen mid wax lagu kala qaadayo mid wax lagu kala tegayana maaha waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi waxaan leeyahay haddii cidi xukun ama digtaatoornimo ama xoog ku haysanayso siyaad barre ku haysan lahaa dalkani waa dadkii aad waxaad ogtay hore u soo marisay waaye laamaha ammaanka ciidanka booliska oo hadlay waxay sheegeen inaanu sharci ahayn mudaharaadkaa ku baaqaysaan taas beddelkeedana ay waajibaadkooda qaran ay ka mas-uulka ka gudanayaan idinku dadka kicinaysaan inaad leedahay mudaharaadka ka qayb qaata haddaydaan sharciba u haysan siduu dhacaya sharci waa noo haysanaa qodob dastuuriya sharciga noo siiyey qodob dastuuriya ayaa noo siiyey inaanu mudaharaad salmiya qabanno dowladdana hore waa noo ogeysiinay qoraallaan nagu gudbinay xaqna way u leeyihin ummaddu inay masayrkooda muujiyaan waana wax dhacaya xeer lambar qodobka 32 ayaa noo ogol inaanu mudaharaad salmiya qabanno xaqna waa nuu leenaadeer ibrahim jokar CBA TV hargeysa